wardegdeg ah oo hadda soo dhacay maamulka Somaliland waxa uu maanta la kulmayaa duqeymo culus oo dhinaca hawada ah waxaana si toos ah loo bartilmaameedsaday deegaanka ka tirsan maamulkaasi Somaliland iyadoona loo badinayo in ciidamada kooxda Xuutiyiinta Yemen oo dhawaanahanba si weyn u diidanaa aqoonsiga maamulka Somaliland ay ka heleen dhinaca Israa'iil ay beegsadeen deegaanka ka tirsan maamulkaasi Somaliland xog degdeg ah oo hadda soo gaartay waxa ay muujinaysaa in diyaarado dagaal oo dhinaca hawada ah ay duqeymo ka geysteen deegaanka Bulahaar oo ka tirsan halka loo yaqaano saaxil Somaliland iyadoona halkaasi diyaarado qumaatiga u kaca ay markaasi duqeymo xoogan ka geysteen sida ay ku soo waramayaan ila dadka deegaanka deegaano ka tirsan degmada Bulahaar gobolka saaxil ee maamulka Somaliland ayaa sidoo kale waxa la soo sheegayaa in diyaaradaha aan la garanayn noocooda ay duqeymo culus ka geysteen iyadoona loo badinayo inay leedahay kooxda Xuutiyiinta Yemen oo si weyn u diidan aqoonsiga ay maamulka Somaliland ka heleen dhinacaasi iyo sidoo kale dawladda gumeystaha Israa'iil dadka deegaanka ayaa waxay ku soo waramayaan inaan wax khasaare nafeed ah aan jirin laakiin duqeymaha ay bilowdeen markii laga baxay salaada duhur iyadoo wali halkaasi ay cabsi xoogan ka taagan tahay goobjoogayaashu sidoo kale waxay sheegayaan in diyaaradaha ay arkeen dadka shacabka ah iyagoo duqeyn ka geysanaya qayb ka tirsan maamulka Somaliland xukuumadda Somaliland ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin dhacdada maanta lagu duqeeyay deegaanka ka tirsan maamulkaasi iyadoo sidoo kalena dhawaan kooxda Xuutiyiinta Yemen ay jabsadeen barihii internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale bankigii dhexe ee maamulkaasi Somaliland Xuutiyiintu hore ay u sheegeen inay si weyn uga xun yihiin aqoonsiga maamulka Somaliland ee ka hesha dhinaca Israa'iil waxaana sidoo kale la filayaa in talaabadan ay dabka ku sii kariso xiisadaha Israa'iil iyo sidoo kale guud ahaanba dawladaha ku dhaqan gobolka Geeska Afrika oo si weyn u diidan aqoonsiga maamulkaasi Somaliland sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta ayaa iyagu ku dhowdo si weyn u diidan in Israa'iil ay xilligan saameyn ku yeelato gobolka Bariga Dhexe sidoo kalena ay xiisadeeda u soo rato gobolka Geeska Afrika iyadoo sidoo kalena dawladda Soomaaliya ay marar kala duwan ka dhidhisay gardarrana ku tilmaamtay aqoonsiga maamulka Yahuuda Benjamin Netanyahu ay siinayaan Somaliland oo kamid ah Somaliland ayaa waxay Soomaaliya ka go'day sanadkii 1991 markii ay burburtay dawladnimadii Soomaaliya iyadoo ilaa iyo hadda aan helin aqoonsi rasmi ah oo caalami ah hayeeshee 26 December 2025 dhamaadka sanadkii aynu soo dhaafnay ee tagay ayuu Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in aqoonsi ka helay isla markaana maamulkiisa uu hadda aqoonsi rasmi ah ka helay dhinacaasi iyo sidoo kale maamulka gumeystaha Israa'iil walow dadka qaar oo wadamada Islaamka African Union iyo sidoo kale guud ahaanba ururada caalamiga ee Soomaaliya ay qaybta ka tahay si weyn dhacdadaasi u diideen haddaba daawade maxaa kaaga baxay in Somaliland markii ugu horeysay duqeymo dhinaca cirka ah ay ka geysteen diyaaradaha Xuutiyiinta Yemen sidoo kalena maamulka Somaliland maxaa la gudban xilligan fada aragtida ku aadan arrimahaas qaybta hoose ee falada komiitiga noqon muuqaalkan fogo gaarsiis saaxiib badan oo aan ku mahadsantahay la socoshadii la jaanqaadka wararkayga